السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا مركلا يوم وقال سمرك هراء عن قصة لنا حبيبكنا محمد صلى الله عليه وسلم سودو ما توحربا إن كل وذا قرين عن سلاي هاي والوبا هاي إن لجاسيو دليرت الصومالية وحاجوكتا ودنكي وحاجوكتا بالكسمرك إذا معتو إن وحلو صادرة إن لو صوبيلو أضاف لي صوحنا أفرسع هددا كسوك عديد habeenkina magaalada aad ku soo gaxwaysid taasina aad ku isticmaashay ama noloshaada aad ku mareeraysid lacag lagu soo diray waxaa joogtaa qurbaha khaasatan Yurubta iyo America Canada waxaa rabtaa inaad qaadato ceer 90 guriga aad joogtid mobilka aad gidgidisid oo dhinac kasta aad u kala rogtid bishii markay dhamaato ceerta ay ku soo dhacdana noloshaada aad ku maaraysid laakiin taasi ma aha mid adiga kugu habboon sharaftaada mansabkaaga iyo makaankaada iyo khiyamkaaga intaba waxaa iska dhaadhicinaa badanaa inteena Soomaalideena badan wadankii inaysan shaqo jirin wax la qabtay aysan lahayn nolosha ay aad u ciriiri u tahay sax wadanka wuxuu soo maray marxalad ka duwan wadamada kale ee caalamka wadanka wuxuu soo marmaray burbur iyo dagaal iyo abaaro laakiin saas ay tahay rag ayaa ka sameeyay lacag macquul ahayn haddii halkaan lagugu sheego aadan rumaysanaynin raggaasi wax kuma dhaaman adiga ayay kula mid yihiin 9 bilood ayay ku dhasheen aqoonta ama fikirka ama aqliga aan leedahay ay leeyihiin laakiin ay aqligooda waxay u isticmaalaan dhinaca wanaagsan uma isticmaalin inay qof walaal ama waalid ah wax ka sugaan ay u sixdaan bishii markay dhamaatay ay dhahaan wax ii soo dir waxaa rabaa nolosheeda inaan ku maarayo haddaba waxaan rabaa muuqaalkan inaan kugula wadaago dad nolosha noocaas oo soo maray tan adiga hadda aad ku jirtid soo maray laakiin noloshooda wax ka bedelay ila daawo waxaad fursad u helaysaa haddii aad ila dhamaysid muuqaalka ilaa dhamaadka inaad wax badan aad ka faa'iidid waxaan rajaynayaa muuqaalka marka aad daawatid inaad u sheergelisid dhalinyaro badan si ay noloshooda wax ugu bedelaan waayo waxaa jira dhalinyaro badan ka soo qalanjibiyay jaamacado ama dugsi sare haddana guriga fadhiya adeer abti aabe walaal ilma adeer qof shisheeye qof surkeeye wax ka sugaya bishii markay dhamaato mobilka gacanta u qaada oo dira ama message ama fariin u qora in wax loo soo diro noloshoodiiba wax kale aanan diyaar u ahayn inay sameeyaan waxaa jira dhalinyaro badan fursadii helay inay tahriibeen bacaadkii mareen oo gamagafi wixii ilaahay ka badbaadiyay Yurubtu markay tageen guriyaasho iska jiifa PlayStation iska ciyaara iyo game iyo waxyaabo kale ama internetka 24 saac iska jira oo game iyo waxyaabo ku ciyaara laakiin haddana noloshooda aan maareynin wax biican aan sameeynin ma ogtahay daawade wadamada dariskana la ah ama wadamadan dunida saddexaad loo magacaabo waxyaabaha ay ku dhiseen dakhligooda ay ugu kubciyeen inay tahay lacagaha ay ka soo shaqeeyeen qurbaha laakiin Soomaaliya waxaa laga yaabaa in taasi ay ka duwan yihiin ay kaliya nafsadooda xataa ay maareyn kari laayihiin inay wadankooda dib u dhisaan iska dhaafay marka laga reebo koox yar oo aad u tiro yar waxaan rabaa inaan kaaga sheekeeyo qiso wiil walaalkeena ah la yiraahdo Maxamed oo sanado ka hor ahaa qof aan waxba haysanin sanadka sano u soo tahriiba wadamada Carabta laakiin markii dambe oo ilaahay si tala saartay wadankii u noqday ganacsigiisna uu ku bilaabay wax aad u yar oo haddana uu yahay ganacsatada ugu waaweyn qisadaas waxaan kaaga sheekayn doonaa muuqaalka ku xigo hadduu ilaahay ka raali noqdo balse waxaan rabaa hadda inaan kuu soo gudbiyo 3 fursadood ama 4 fursadood wadankii aad wax ugu qabsan kartid fadlan ila daawo ilaa dhamaadka si aad wax badan ugu faa'iidid balse inta aan kuu sheegay 3daasi waxaa ka horeysa 3 sifo adiga laga rabo haddii aad rabtid inaad wax qabsatid ama noloshaada aad maareysid inaad samaysid marka hore waa inaad ilaahayga ku kalsoonaataa cibaadadaada iyo taacadii ilaahay wixii ilaahay ku faray aad la timaadaa ogow adoo caasi ah oo ilaahay ku caasiyay oo aan tukanaynin oo xaraan cunaayo oo dad cunaayo oo yacni wax kasta oo ilaahay xaaraantimay sameynay ma laga yaabo inaad tawfiiq aad gaarto ama horumar aad gaarto inta yar horumarka aad gaartay inta yar horumarka gaartay aad arkaysna waa kuwa loo sii dheereeyay oo ilaahay meel xul rabo ilaahay kaama dhigo kuwaas haddii aad aragtay noloshaada inay ciriiri ku jirto aad dhibaataysan tahay marka hore istighfaarta badi waa taacada ilaahay u noqo mid adoon ah oo ilaahay ku xiran oo ilaahay caabuda oo wax walba uu sameeyay ilaahay la kaashado waa tan labaad waxaa sameynaysaa
inaad kalsooni nafsadaada aasiisid, inaad adiga qof bini aadan oo ilaahay kaa dhigay qofka wax ku siinayna asi uusan waxba ku dhaamin, keliya ay fursad soo martay, fursadaasna ka faa'iidaystay. raadi fursadaas oo kale, isku day inaad shaqo raadisid from zero ka soo bilow. ha isdhihin aniga aqoontaas ayaan leeyahay, shaqadaas ayaan u qalmaa, shaqadan kalama qaban karo. waayo waxaa jirto boqolaal qofood oo shahaadooyin aad u sareysa haystay, meel yar ka soo bilaaway oo haddana ilaahay meel dheer gaarsiiyey. hayasin shaqada markaa lagu keeno nooca ay tahay. waa ognahay waddanka waxaa ka jiro shaqooyin waxaa la yidhahdo wasta bilcarabi, wasta la yidhahdo soomaali igu soo qora hoos commentiga. wasta ayaa la isku geeyaa ina adeer ama ina abti ama yacni macrifo, aqoonsi qofku markii qofku u dhow yahay ayaa la geeyaa. soomaali shaqooyinkeeda taas ayay u badan tahay. laakiin haddii aad heli weyso xataa marka qofku waastay, raadi shaqooyin hoos ka soo bilow. shaqo noocay doonta ha ahaato hayasin, shaqada ceeb maaha, noocay doonta ha ahaato. shahaado ayaa leedahay, caafimaadka ayaa taqaanaa, biraha ka shaqeey, biraha ayaa taqaanaa, waxa waaye ka shaqeey wax allaale wixii markaas kugu soo horbaxo oo adiga aas leedahay noloshaada waa ku maareyn kartaa. midda saddexaad waxay tahay khiyaano iyo been nafsadaada ha u sheegin. khiyaano iyo been nafsadaada ha u sheegin markaan ku leeyahay waxaa waaye ha isdhihin aniga berito ayaa waxaas heli doonaa, iska sugaa. يعني وحوالي لين أيها حريصان سومالي وحيكون مشغوشو لين أيها حريصان لين كاس مركو إيسو بحو أيها وحان سمينيا دحال كاس أيها سوغو مركي لقارو وحاس أيها سمينيا ودنكي أيها هقاقا دولت في عن أيها إيمانيسا مركي إيماتو أو شقوين إيمانا مركاس أيها شقيسنا وايو وقتي أيها كوغو سعودا وقتي وكنا فانا ديب كوغو سعود نقوم مايو ما أنت هدي سميسي $10 بري أسميسي 10 كالي أما ما أنت هدي أسميسي $5 بري $5 أسميسي بيشي مركي نماتو وحيكونو قونيسا العاق لكن ما أنت مركا اسكفريسيد سوكتيد بري وحي دعي دونو أما بري وحي لغو سمين دونو أما بري وحي نقون دونتو وحا هالكاس كبحايا فرصده وناكسنا أذيك كسو مري أيام ميشا كبحايا سدحداد مركا سميسي ميد كواد أو إنا إلهي كحرناتيد كو oo ilaahay daacad noqotid adoon u noqotid ilaahayga wax kasta aad la saartid istighfaartii iyo taqwada salaad aabadid labo in shaqo kasta lagu keeno adiga aadan yasin shaqo nooc doonta aan noqoto inaad bilowdid oo aad ka shaqaysid oo isku daydid inaad ku sii meel gaartid ilaa mid ka fiican aad ka sii helayso iyo mid saddexaad oo ah nafsadaada waaqiciga ama xaqiiqda adiga aad ku nooshahay markaas inaad u sheegtid adigoo ah qof bil kasta qof bini aadan wax ka sugaya adigoo ah qof bini aadan inaad macnaha haduu telefonkiisa ka dansada ay kugu filan tahay maalintaas inay xaaladaada ay xumaato inaad nafsadaada u sheegtid aniga shaqadan uma qalmo kama shaqeyn kari shaqada mansabkeyga ma aha shaqada noocan way iga yar tahay laan dheeraan ahay ilma fulaan baan ahay reer hibil baan ahay waxaan ka soo jeedaa shahaado noocaas ayaan haysan nafsada been inaad u sheegto waa laga fiican yahay waayo waxaan aragnaa Soomaaliya markii la joogo shaqooyinka la ceebsado oo aan laga shaqeynin qurbaha markii la imaado waa laga shaqeeyaa waay kan qurbaha ka shaqeynoo nolosha aadka cariiri u ah oo baabuurta dhaqa oo hilibka gowraca oo laamiyada dhisa oo habeen imaalin soo jeeda shaqada uu ka shaqeynaa adiga telefoon aad ugu diraysaa oo sugaysaa ilaada ay soo dir marka adiga aad ka shixisay shaqada wadankaaga taalo adiga aad qaban kartid oo aad leedahay tan aniga ima qalanto muuqaalka ku xiga insha Allah waxaan kugu soo gudbin doonaa qisa aad iyo aad aniga ii cajibisay run ahaantii 9 sano ka hor ayuu ka tagay wadanka aniga aan ka noolahay wuxuu ahaa nin nolosha ay aad cariiri uga dhigtay wuxuu ahaa nin markasta sharci aan lahayn wadankan imaado sharci la'aan ku soo galo dhowr bilo markuu shaqaystana la qabto la tarxiilo Soomaaliya aado haddana badii Yemen ku soo noqdo oo halka imaado laakiin maanta wuxuu ku nool yahay nolol aad u wanaagsan waan kaaga sheekan doonaa fadlan muuqaalkan haddii ku soo gaaro u share garay asxaabtaada mashaqeyshiyaasha kuwa jiifka jecel kuwa jecel kaliya in marka bisha ay dhamaato loo soo diro lacagta ay ku barjeeyaan u share garay fadlan muuqaalka meel leer gaarsii adiga haddii aad nala joogtay aad baad u mahadsan tahay haddii aad nala joogin subscribe noo saar si muuqaalo noocan oo kale aan u soo badino asxaabtana aan loo wadaagno ilaahay waqti hanoo barakeeyo markastana aan ku duceysano inuu ilaahay wadanka noo hagaajiyo wasalaam